warbixinta ayay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ku sheegtay in kiisaska xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya ay sii kordhayaan sidoo kalena la filayo in Soomaaliya ay dhamaadka sanadkan ama bilowga sanadka 2021 ay ka dhacaan doorashooyinka guud. Doorashooyinkan ayay suurtagal tahay inay noqdaan kuwo furan, taas oo haddii ay dhacdo ka dhigaysa markii ugu horeysay muddo 50 sano ah. sidaas daradeed ayay warbixintu ugu baaqaysaa dowladda Soomaaliya in ay maalinta caalamiga ah ee saxaafadda ee 3 bisha May ee sanadkan 2020 ay u adeegsato inay soo gabagabayso xiritaanka iyo cagajuglaynta ay ku hayso wariyaasha. Leticia Barrer oo ah agaasimaha Geeska Afrika ee hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay helitaanka warbaahin ka fayow tacaddi ay muhiim u tahay in dadka Soomaaliyeed ay helaan xog ku saabsan cudurka safmareenka ah. Dowladda Soomaaliya ay ugu baaqday inay joojiso xarigga iyo bahdilaadda ay ku hayso saxafiyiinta. Warbixinta Human Rights Watch ayaa tusaale u soo qaadatay xarig ay maamulka Baydhabo 20kii bishii Abriil u geysatay wariyaha VOA-da Mukhtaar Maxamed Catoosh, kaasoo markii uu 2 habeen xabsiga ku bariyay kadib la sii daayay 22kii Abriil. Maxkamadda ayaa sheegtay in lagu soo eedeeyay baahinta warbeen abuur ah. Mukhtaar ayaa sheegay in booliska ay su'aalo ka weydiiyeen war uu 19kii Abriil u diray VOA oo ku saabsanaa 3 dumar ah oo lagu kufsaday wadada isku xirta Baydhabo iyo Muqdisho. Mid ka mid ah dumarka ayaa u geeriyooday dhaawacyo soo gaaray. Abriil 14keedii ciidanka booliska degmada Hodan ayaa xiray Cabdulcasiis Axmed Gurbiye oo ah tifaftiraha warbaahinta madaxa bannaan ee Goobjoog Media Group. Xarigiisa ayaa ka dambeeyay kadib 2 qoraal oo uu soo dhigay bartiisa Facebook oo uu ku dhaliilay qaabka ay uga jawaabayso dowladda Soomaaliya xakameynta cudurka COVID-19. Wuxuu ku eedeeyay madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu qaatay mid ka mid ah mashiinada dadka neefta ka caawiya ee dhawaan loogu deeqay isbitaalka ku yaala magaalada Muqdisho. Human Rights Watch waxay kala warbixinteeda ku xustay cagajuglayn ay 2 Abriil hay'adda nabad sugidda Soomaaliya barteeda Twitter-ka u soo marisay Haruun Macruuf oo ka tirsan VOA. Hay'adda NISA ayaa qoraalkeeda ku sheegtay in Haruun uu khatar ku yahay amniga qaranka, isla markaana uu ku jiro falal ka baxsan xayndaabka saxaafadda. 23kii Abriil ayay sheegtay in baaritaanka ay ku waday Haruun u gudbisay xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya. Waxa kale oo ay ciidanka dowladda xireen wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja, kaas oo wasaaradda warfaafinta sheegtay in uu ku socdo baaritaan ku aadan in uu xubin ka yahay ururka Al-Shabaab. Human Rights Watch waxay sheegtay inaysan weli wax jawaab ah ka helin warqad ay 28kii Abriil u dirtay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Suleymaan Maxamed Maxmuud oo ay ku weydiisay faahfaahinta xaaladda baaritaanada Cabdulcasiis, Haruun iyo Maxamed Abuuja. gabagabadii Human Rights Watch ayaa ku boorisay dowladda Soomaaliya in ay xaqiijiso in shacabka ay helaan xaq ay u leeyihiin helitaanka xogaha iyo in dadka loo ogolaado in si xor ah ay u cabiraan fikradahooda oo ay ku jiraan in ay dowladda ku cambaareyn karaan qaababka ay uga jawaabayso cudurka COVID-19.